petrolki hantidiyo barwaaqada eebena hoos dhigay waa laga habsaamay eebena hoos dhigay waa laga habsaamay oraha petrolki hantidiyo barwaaqada eebena hoos dhigay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليد أمريكا استوى الدنيا كجوكتان وولالكن سلو بايد الله وقت جاي وايو هيدين وعنادا أصحابي مر لبادي مر صدحات بكسر دواد البرنامج كيني جيدي سعود كدقالها الصومالية أو تحانين وها برنامج قيبتي سيهر وحان كسر حصي إن صوماليا يكون ترسنت هاي لباتي وقت حاضر كان دقاليه كتير سنياي تير كوباد xoolaha nool oo aan ku soo xusay barnaamijkii hore marka waxaan ka codsanayaa inta aan barnaamijka qaybtiisa labaad u gelin inaad YouTube-ka fadlan subscribe tiraahdid like tiraahdid asxaabtaadana u sii share garaysid wixii talo iyo tusaale oo aad noo haysidna barta faallada iyo commentiga noogu reeb waad mahadsan tahay tiirka labaad ee dhaqaalaha Soomaaliya oo ku tiirsan yahay waa lacagta qurba joogtu u soo diraan eheladooda iyo asxaabtooda oo gaadhaysa 1.6 bilyan oo dollar waa lacag aad u badan marka loo fiiriyo baaxadda dhaqaalaha Soomaaliya waa lacag ay ku nool yihiin 40% qoysaska Soomaaliyeed oo la'aanteed macaluul u dhiman lahaa waa lacag kaalin mug weyn kaga jirta dhaqaalaha dalka mar waxay nafaqo u tahay dadweynaha malaayiinta gaadhaya oo masruufta mar waxay dabooshaan miisaaniyadda dibadda mar waxay dalka ka haqabtirtaan lacagaha qalaad ee looga baahan yahay dalka dibaddiisa in wax looga soo iibsado tusaale ahaan 2013 qiimaha waxay Soomaaliya soo dejisatay waxa uu ahaa 3.3 bilyan oo dollar qiimaha waxa ay dhoofisayna waxa uu ahaa 779 milyan farqiga labadaas cadad u dhaxeeya waa 2.5 bilyan waxaana kaaba lacagta qurba joogtu u soo diraan eheladooda iyo asxaabtooda iyo in yar oo deeq dabadeeda kale waa isha dakhli uu ka soo galo dawladda dhexe iyo ta gobolada kuwaasoo ku tiirsan cashuurta soo dejinta balmalee daawade haddii aan lacagta la heli lahayn soo ganacsigu ma istaageen soo dakhliga dawladdu ma mandheen soo noloshu ciriiri ma gasheen ugu dambeyntii lacagta qurba joogtu waxa ay kaalin mug weyn oo kale ka qaataan ganacsiga xawaaladaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay kuwaas oo maamulo lacagta qurba joogtu u soo diraan eheladooda iyo asxaabtooda waxaa jira walwal ay qabaan khubarada daraasadeed cilmiga dhaqaalaha ee Soomaaliya kuwaas oo isweydiinaya labada tiir ee dhaqaalaha Soomaaliya maanta ku tiirsan yahay ma yihiin kuwa sii jiri doona waxayna u sababeynayaan xoolihii waxa haysta nabaad guur iyo abaaro isdaba jooga reer baadiyihii oo magaalooyinkii iyo tuulooyinkii soo degaya sideedaba reer baadiyuhu xoolaha qaabka ay u dhaqan maaha qaab horumar u keenaya dalka ee waa mid la dagaalamaya nolol maalmeedka oo keliya dhinaca kale lacagta qurba joogta waxa weerar ku haya ololaha Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada muddo ayaa la joogaa imika qurbaha dadkii waayeelka hana way sii dhamaanayaan caruurta qurbaha ku dhalatay iyo caruurta ay sii dhalaan waxa ku yar dareenka qaraabanimo iyo xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya waxa la isweydiinayaa mustaqbalka lacag ma soo diri doonaan waxa jira laba tiir oo loo baahnaa inay ka muuqdaan dhaqaalaha Soomaaliya waqti xaadirkan waa kalluunka iyo beeraha kalluunkii waxa lagu dhameystay sharci darro iyo xaaraan beerihii iyo dhulkii barwaaqadahana waxa lagu gelilayahay argagixiso daawadayaal barnaamijka qaybtiisii intan ayaa ku soo gunaanadaya la soco qaybta saddexaad mahadsanid